gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cud injineer Faysal Cali Waraabe oo maanta ka hadlayay munaasabad qalin jabin oo ka dhacday magaalada Hargeysa ayaa ka jawaabay hadal shalay ka soo yeeray wakiilka Djibouti u fadhiya Somaliland Ambassador Xuseen Cumar Kawaaliye ugu horreynna waxa uu gudoomiyuhu u mahad celiyay dad uu sheegay inay ku taageereen hadalkiisii ku aadanaa Djibouti waxaan jeclay marka hore inaan hambaliyeeyo dhalinyaro shacabka reer Somaliland oo maalweeto dooratan dawladdan aan jaarkana yara taabtay runta yara sheegay iyo aad igu hiiliyeen magaca difaaca qaranka marka hore waxaan jawaab ku kaliyay saa oran jiray laakiin waxaan helay mujtamac badan oo ii hiiliyay magaca waa inuu qarankeena waxa dhaxdeena waa inuu hoos u dhignaa waa inaynu difaaca qaranka ku midownaa aad iyo dhammaan u hambaliyanayaa dhalinyartii social media aad iga daafacday deewaana ay sheegtay oo aanu falku ima qabto wiliga salaalaan kuma bixin moogtahay injineer Faysal Cali Waraabe waxa kale oo uu dhaliilay golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa waxana uu sheegay in magaalada Hargeysa ay ku dhowdahay maanta in gabi ahaanba laga guuro waxana uu tilmaamay in loo baahan yahay in la galo dadaalkeeda sidii loo dooran lahaa golayaal deegaan oo u shaqeeya dadka waxaynu haruubka u qaadanaynaa doorasho insha Allah taala wanaagsan oo dad wanaagsan inoo soo baxaan oo meeyar fiican inoo soo baxaan maanta magaaladeena waa aragtay in laga guuraaba in yar u jirta Hargeysa laga guuraa iyadoo islaamka Afrika uu weynaalaya Kibara ee Kenya ku nool magaalada Nairobi iyo Hargeysa isku mid bay noqotay islaam bay noqotay insha Allah qaar khayr qaban doonaa iyo baarlamaan khayr qaban insha Allah taala doonaa taasna way noo hirgelisaa oo arimaheena one by one baynu soo qarayna insha Allah taala inagoo wada jiru jirna Saciid Aadan Jaamac Television Koon Cable Hargeysa adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawshid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida